kulan wacan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka wararka warbixinadii ugu dambeeyay dalkeena hooye ee Soomaaliya oo aad uga barateen in aan halkan idinkugu soo gudbino toos media haddii ay tahay markaa koowaad soo booqatay kanaalkan like muuqaalkan iyo muuqaalada ka dambeyn doona waad mahadsantihiin sidoo kale subscribe inoo saar channelkan qodobada aan idinkugu hayna maanta waxaa ugu waaweyn haddii ay bweyne raalle ka noqdana aan idinkugu soo gudbin doonaa waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaare xamse oo kulamo la qaadanayo wakiilada beesha caalamka madaxweynaha dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo haatan booqasho ku jooga dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa la filayaa inuu uga sii gudbo dhinaca magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya muxuu yahay qorshaha madaxweyne xasan kadib safarka Djibouti qodobo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo warbixintaasi sidoo kale waxaanu diinahaynaa sheekh shakuul oo ka mid ah culimaadudiinka Soomaaliyeed caanka ah waxa uu aad walaac uga muujiyay qodob ka mid ah heshiiska Soomaaliya iyo Kenya ku dhex jira haddii rabbi raalli ka noqdo qodobkaasi uu aad walaac uga muujinayo waanu idiin soo gudbin doonaa waxa uu ku saabsan yahay qodobada kale aan idiin hayno haddii alla weyne uu inoo ogolaado oo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax ismidaamin oo ka dhacay Jowhar iyo war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale xamse oo isna ka hadlay qaraxaasi haddaba magacyada dadka caanka ee ku waxyeeloobay qaraxii Jowhar qodobada iyo qodobo kale oo dhammaystiran ayaan idiin soo gudbin doonaa inta uu barnaamijka hawada inoogu jirayo haddii abweyne raalli ka noqdo ku horeeyay warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismidaamin ahaa oo ka dhacay gudaha magaalada Jowhar kaasoo loo adeegsaday gaari xamuul ahaa oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxan ismidaaminta iyo jugtiisa laga maqlay guud ahaan xaafadaha magaalada Jowhar kaasoo ka dhacay hotel lagu magacaabo Nuur Doob oo ay degan yihiin inta badan wasiirada iyo xildhibaanada maamulka Hirshabelle mas'uuliyiinta qaraxa ku dhaawacmay ee la xaqiijiyay waxaa ka mid ah wasiirka haweenka ee xuquuqul insaanka Hirshabelle Caasha Khaliif Xaaji wasiirka wasaaradda caafimaadka Hirshabelle cabdi macalin gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle Canab Axmed Ciise iyo xildhibaan hore oo lagu magacaabo Jeego waxaana dhaawacyadooda la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Jowhar qaraxa ismidaaminta ayaa sidoo kale burburiyay dhammaan dhismaha hoteelka lagu weeraray iyo qaar ka mid ah guryaha ka agdhowaa hoteelka qarax uu ka dhacay oo ay degan yihiin dad shacab ah afayeenka madaxtooyada Hirshabelle Daawud Xaaji Cirro oo war kooban siiyay telefishinka qaranka ayaa sheegeen qaraxan uu geystay khasaaro ku kooban dhaawacyo iyo burbur dhismayaal oo aysan jirin cid ku dhimatay qaraxa maanta ka dhacay Jowhar waxuu intaa ku daray afayeenka Hirshabelle in baaritaano dhab ah lagu sameyn doono sababta keentay qaraxan sidoo kalena in uu ka dhaco gudaha magaalada Jowhar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa uga tacsiyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Jowhar ee dadka dhibaatada ka soo gaadhay qaraxii maanta ka dhacay magaaladaasi ra-iisul wasaare xamse ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guuldaabe oo xog ka siiyay xaaladda iyo goobta qaraxu ka dhacay ra-iisul wasaaraha ayaa u ballan qaaday inuu garab taagan yahay maamulka iyo shacabka gobolka gacan ay ku siin doonaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxaasi dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta kulan la yeeshay safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrew iyo xubno ka tirsan safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ra-iisul wasaare xamse oo qaabilay xubnahan ka socday Mareykanka ee uu horkacaya Larry Andrew ayaa kala hadlay laba arrin sida xoojinta xiriirka labada dal iyo taageerada ay dowladda Mareykanka siiso ciidamada Soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xamse cabdi barre ayaa qaabilay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrew oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka waxaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha in ra-iisul wasaaraha sidoo kale uu uga mahadnaqay taageerada dowladda Mareykanka ee ku aadan dhaqaalaha iyo ciidamada maadaama ay qayb ka tahay dagaalka Al-Shabaab xamse cabdi barre ayaa sidoo kale shaaciyay in xukuumaddiisa cusub ay sii wadi doonto wada shaqaynta isla markaana ay xoogga saari doonto sugidda amniga guud ee dalka ra-iisul wasaare xamse ayaa wadaa kulamo uu la yeelanayo xubnaha beesha caalamka waxaana uu shalay la shiray danjiraha dowladda Shiinaha u jooga Soomaaliya iyo sidoo kale ku-xigeenka ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya oo uu kala hadlay taageerada dowladda cusub iyo sidii loo sii wadi lahaa si kastaba xamse ayaa haatan laga sugayaa inuu ku dhawaaqo liiska golaha cusub ee wasiirada iyadoo oo markaasi kadib la horgeyn doono xubnaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya ayaa ka hadlay heshiiska ay wada gaareen xukuumadda Muqdisho iyo Nairobi kaasi oo ay wada saxiixdeen madaxweynayaasha labada dowladood
shakuul oo u waramay telefishinka universal ayaa shaaca ka qaaday in uu ka naxay qodob la xidhiidha dib u fasixidda qaadka kaasi oo soomaaliya ay ku bedelatay kalluunka. shiiqa ayaa tilmaamay in qaadka uu dhibaato weyn ku hayo soomaaliya uuna sabab u yahay burburka dalka, kan qoyska, diinta iyo dhinaca dhaqaalaha. meesha qaadka aniga oo og inuu yahay shay aada u xun oo burburka soomaaliya aan oran karno qeyb weyn buu ku yahay ama ku leeyahay dhinaca qoyska marka laga fiiriyo dhinaca diinta, dhinaca dhaqaalaha. haddana haddii loo eego baaxadda ganacsiga kalluunka soomaaliya, haddii si fiican looga faa'iideysto ee ganacsiga qaadka, waxay isku dhigma ma ahan oo hal gobol oo markaas meru la yiraahdo ayuu kasoo baxaa, waana dhib runtii buu yidhi sheekh maxamed shakuul. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqeen qodobkan uu aada uga naxay, balse waxa uu tilmaamay heshiiska marka la eego 70% inay faa'iido ugu jirto soomaaliya, siiba marka laga tago qodobka la xidhiidha qaadka haatanna dib loogu soo daabulayo magaalada muqdisho. waa qodob runtii aan aada iyo aada uga naxay qodobkaasi. haddii lasii gudagalo kenya, wadamada marka ay wada hadlayaan qoloba waxbay wadataa, waxaan isleeyahay heshiiska 70% waxay dani ugu jirtaa soomaaliya. halkaasi qodob oo qaadka mooye waxaa moodaa xoogaa markaasi in ugu fara badan yahay kenya, iyaduna waa in shacabka ay wax tusiyaan buu sii raaciyey. ugu dambeyn waxa uu soo dhaweeyey qodobo ka hadlaya dib u furista xuduudda labada dal, duulimaadyada labada dhinac, gaar ahaan in muwaadiniinta loo fududeeya dalku galka, oo aada u soo dhaweeyey. hadalkan ayaa kusoo aadaya maalin uun kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu kusoo laabtay dalka uuna usii safray jabuuti markuu heshiis kooban oo markaasi dhowr iyo qodob lasoo saxiixday dhigiisa kenya uhuru kenyatta, kaasi oo bilow u ah hagaajinta xiriirka labada dal. isla socdaalka madaxweynaha ayaanu ku guda jirnaayay. madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan booqasho ku jooga dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa la filayaa in uu uga sii gudbo dhinaca magaalada addis ababa ee caasimadda etoobiya. madaxweynaha ayaa casuumaad ka helay ra-iisul wasaare abiy axmed, waxaana uu gelinka dambe ee maanta u duuli doonaa addis ababa sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo muhiima. xasan oo weli ku sugan jabuuti ayaa wadahadallo la yeeshay dhigiisa ismaaciil cumar geele oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha ammaanka, dhaqaalaha iyo iskaashiga labada dowladood. sidoo kale madaxweynaha ayaa dhankiisa waxa uu ismaaciil cumar geele ka guddoonsiiyey bilad sharafta ugu sarreysa jabuuti kadib markii caashi sharaf loogu sameeyey madaxtooyada dalkaasi. xasan sheekh ayaa sidoo kale maanta khudbadda u jeediyey baarlamaanka jabuuti, taasoo uu kaga hadlayay xiriirka iyo walaaltinimada soomaaliya iyo jabuuti. si kastaba safarka madaxweynaha uu ku tegi doono etoobiya ayaa noqon doona kiisii 6aad, waxaana uu horey u qaaday ama u booqday aan idhaahde imaaraadka, turkiga, eriteria, kenya iyo jabuuti oo haatan uu joogo. soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed 15 May kadib markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ballan qaaday soomaali heshiis dunida heshiis la